Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada xalqadeena maanta oo aan kaga hadlayno qaanuunka cusub ee shirkadda WhatsApp. WhatsApp waxay ku qasbi doontaa macaamiisheeda inay xogahooda gaarka ah la wadaagaan Facebook iyo shirkado kale oo gaar loo leeyahay. Macaamiishu waa inay aqbalaan wax ka beddelka lagu sameynayo privacy-ga WhatsApp-ka laga bilaabo 8 February ee bisha soo socota. Haddii aad aqbasho wax ka beddelkaas, waxay ka dhigan tahay adigoo aqbalay inaad la wadaagto shirkadda Facebook iyo sharikad kaleba xogahaaga gaarka ah sida nambarada contactskaaga, IP addresskaaga, iyo meesha aad joogto. Haddaba, wadamada reer Yurub iyo waddanka UK ma saameynayo isbeddelkani sababtoo ah waxay leeyihiin sharciyo aad u difaacaya in xogta muwaadinka meel kale lala wadaago. Dadka isticmaala WhatsApp waxaa lagu qiyaasaa dad gaadhaya 2.5 bilyan oo qof caalamka oo dhan. Haddaba say dadku uga falceliyeen isbeddelkani lagu sameynayo